سوى أنت نجيبك ليه ورثة حفتاح مرة وعفرينا قدك تلفونك سيدنا ما كان ولا له أي شيء أنا كله هرت هذا كسي سوى مرقي لكن هذا الكي هذا ماشي كتاجنا الشيخ شريف ويري وهذا العاد أو عندنا أي نكير كرين يسود ويري يوحوا ولا شيء سجل فتجيسنا أو أقام صدي أو كهذا أو يستري ذاتك كرر على جل لكن وكير ورورجي مركا قفك إمك كده هذا الكاسيد على ما أرنا سيد كلا لورجي قفك يرين أو كوكنا عسين وخلد هاي ودوني إنه كأبول شيء كلاه قفك سمش ولا هذا سجل وتعالى لكن هذا كان وهذا العاد وحوي هاي الأوجي هاي أرنتان الشيخ شريف مقف مركو خلد قال إن لقب قبصه ولا هو دقدقه هديه أقام صوحي إنه خلد يعني أنا وتام قبو لكن بني آدم كي خلد كده كريو نكنا وخلد كاس كده عاي هاوش نصير عاي كوسعته ومد الصوماليين ده واحد أنا وأوجادي ولكن أنا دوس على نكلي هذا ليبان أرنت إن مدحونياش يدك ينوت اللي محله قبصني أنا واحد أوجادي ومد الصوماليين وحيابها أو في عن إن أي كربت النقدان أو أي دبات السمايان أو أي دتك وحياليان وح كوكا إن أنا لا حسابت من خلطك أي سمايان أنا لو يدين الوارد أنا وشيخ شريف ما أنت لو يمد وهرفرست أنت أديك شو كان وتشتري والله ما كل أنت دتك ماشي كشري السوق علي دت أن أوجا أو سيدا نكا أي أمي كشري أن يصير معارض واحد أديا بسيد والله ما ده حكروا أوقات واحد نكا اسمك سي أوجا بسنة ما أنت معناها وحويان دتك يا هدي حاجة وده كروي وقادي باين معناها أساس مو فين كلام دي ما ده كرو قادست هو مش شيء يعني معناها هو مش شيء يعني نيك ورفض يستك معناها ووقفك والغرفة ده waxa aad doonaysid kalama hadal karaysid waad ka aad baad ugu hebaysanaysaa احتراميسا macnaha waxa weeyaan waxa meesha yaala hadii dadka madaxda inoo ah markay khalad leeyimaadaan way khaldamayaan of course khalad way la imaanayaan arintii uu sameeyay anigu waxaan qabaa inay khalad ahayd ma jecli in lagu dhalaacayo lagu caayo lagu qabsado oo qof dana kale hawlo kale wata oo ku jiijito laakiin waxaan jeclaa inuu yiraahdo nimayo waa khaldamay arintaas khalad ba iga dhacday ummadda Soomaaliyeed ha iga raali ahaato waxaasina waxaan sida anigu aan ما صدق فتح واحد ربع قدك تلفونك يا فرينا يا بلابينا فضلا أدا سوى عصام فو 6 كقيب قاضو مدحوينها دولة فدرالك الصومالية الشيخ شريف مركو يمي هي دولة دي صوماليا محي كسو كرديس قبل كمينيسوتا ما فائدة وكانت ميس قصارة وكانت دول دين ودول فرن قدك تلفونك يا قاضينا هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان سلامة يا رب سمالي ميدي مرسيدة ما يشفدها وكان قاضي ولا وحان سؤال وقضانين كلاله ليبان قلت ليبان وضو أهادتك معارك كو أهاد دولتي مدحوين عبد الله يوسف واقرن وحان ربطي إنا إلى هذا قلت مدحوين مركو يمادو خبائل صومالي وكذا وحان في عن إن الصبوط قريري أن قبيل شاتي انت اللي حسو مدحوينات أنا فيهم مدحوينك كنتو وقتك في اللو تاني حافيها مرد عبد الله يوسف قبيل بالغردي dadkii halkan ka ololeynay ama ka soo horjeeday waxa ku jiray liibaan waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed wal arkaysan sida Sheekh Shariif loo soo dhaweeyay oo Soomaalinimo ku dheehan tahay aan qabiil la tusinin waxaana ko jiray qabiilka uu ka soo jeedo Sheekh Shariif ayaa dawladii madaxweynaha uu ka ahaa Cabdullaahi Yuusuf aan dhibaato u geysan oo daacad u ahayd oo soo gaar walaal su'aashaada shaqeynaa markii liibaan waxaan rabaa qabiilka aad ka dhalato digal iyo mirif waxa laga soo dhaweeyaa maamulka Puntland waa dadka ugu badan ee ka shaqeysta ee sharafta ku nool marka waxa uu nacam madaxweyne Cabdullaahi aad uga soo horjeeday haday dawladda shisheeye ahaayeen Shariifka baad uu u baahan yahay in dawladda aad baa uma sita walaal waqtiga ugu yar aad baa uma sita liibaan aad baa uma sita انتو سليبان u gudbin ما السلام جوابي waxyar ana ka hormaray horta gabadha magaceeda waa iloobi magaceeda ma sheegin runtii lafteeda cadaalad waxaan ahayn dadka mucaaradka inaan la wada sheegin Soomaalidu waxay ka siman tahay saddexdii nin ba mucaarad baa ahaydeen intana meesha fadhino mucaarad baan ahayn waa garan oo kulligan mucaarad baan ahayn waxaana fiican qofka xorriyadiisa waxa uu marka asaga mucaaradayo waxyaabaha dheer soo gaabay waxaan rabnaa qofka waxa uu mucaaradayo waxa la rabaa liibaan uu taageeri kara dawladda Cabdullaahi waana ka hor imaan kara dad badan oo digil mirif taageersan dad badan oo ka soo horjeedeen kuwa badan oo qabaayilo kala taageersan kuwa waa ka soo horjeedeen waxa hadan ka hadlayna maaha shakhsiyaad waxaan ka hadlaynaa Shariifku muxuu noo soo kordhiyaan ka hadlaynaa marka dadka waxaan ka codsan lahaa
waxba yaan shakhsiyaad la isguulan annagu dowladda waa kasoo horjeednaa cabdullaahi tanna waa kasoo horjeednaa haya liibaan runtii gabadhana soo wacday inkastoo magaceeda noo sheegin horta waad ku mahadsantahay wicitaankaana soo wacday walaal runtii sida wardheera saaxiibka uu sheegay anigu shakhsiyan ahay shaqsigana waxbuu jeclaan karaa waxna waa diidi karaa taas horta ogow adi laftirka waxbaa diidi karta waxna waa ogolaan kartaa midda kale digli mirafla aad sheegtayna way raacsanaayeen dowladda cabdullaahi gobolkoodana ayay deganaayeen baydhabo waa dadka kusoo dhaweeyey ahayd baydhabo mana kasoo horjeedin laakiin shaksi ahaan anigu mataqaana waa kasoo horjeeday cabdullaahi waxaan uga soo horjeeday waxyaalo mataqaana aniga idhibaaya oo shaksi ahaanteeda ahayd ma laakiin personal ahaan cabdullaahi aan ugumana soo horjeedin liibaan aad baa haddaan kasoo gudbo sakri waxay sugtay haddaan kasoo gudbo dowladdan hadda dhalatay oo cabdullaahi sheekh shariif waxyaalo aan ku raacaya jirta shaksiyan mana advocate uma ihi laakiin waxyaalo personal in aan ku raacaya jirta maxaa waxyaalaha kamid ah runtii marka aad fiirisid cabdullaahi waxyaalaha lagu diidi jiray ciidamo Ethiopian wadanka keena jiray ciidamada horkici jiray laakiin cabdullaahi waxyaalo uusan qaban ba shariif ka soo qabtay ayadoo dagaal bal yaasiin asi yaasiin ma yaasiin wuxuu dhihi karaa cabdullaahi shariifka ciidamo weydiistay waa run ciidamo waa weydiistay ma fahant laakiin cabdullaahi dadka ka hor yimid iyo shariifka dadka ka hor yimid isku same ma aha bal yaasiin wuxuu kamid ahaa dadkii cabdullaahi ka hor yimi oo diidanaa ciidamada Ethiopia marka yaasiin haye inta maxaad ku jawaabaysaa marka shariifku waxa la yiri ciidamo yaasiin wuxuu uga duwan yahay cabdullaahi shariifka ciidamo Ethiopian ma wata waxa waaye shariifna waa shakhsi cabdullaahina waa shakhsi laakiin waxa ka hadlayna waa nidaam iyo institution maxay ku kala duwanaayeen balance iyo nidaam iyo institution marka laga hadlo horna waan u cadeeyay ku calcintoodan muhiimad maaha anigu shakhsiyan fardan waxna laakiin inta kor u fakaray oo hoos u fakaray oo dhinac u fakaray oo si soo fakaray shariif cadu shalayga ma jeclay markuu maxaakimta hogaaminaya airport ka xaqayo dekada furay oo magaalada qashka ka xaqay dadka u jeclaa oo arfkada hooyada ma dhalin aabahay ma dhalin dadka u jeclaa ilaa asmara u tagtay ilaa ya asmara u tagtay tala ku sii ma garan waa wacayo shakhsiyan ba wacayo waxaan sameeyay laakiin maanta anigu uma arko kaliya meel sawirka cabdullaahi saarna oo sawirka cabdullaahi lagu wartay shariif lagu bedelay laakiin the balance iyo fikir iyo aqal baa ma santaa yaasiin qadka telefoonka ayaan qaadanayna halo assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeyso dhamaantiin waa salaamay. waa kaa qaadna walaal. marka hore xayo walaalow cudurdaar baan kugu filanayaa raaliga how maanta waa ballansaneen inaan imaadeen 7TV waa qofkii lahaa. sama waa ku salaamna walaal. waxaan rabay inaan fikirkayga kooban ka dhiibto su-aashii maxuu soo kordhiyay imaatinka shariifka. waa garan maxamed. runtii waxa uma soo kordhin oo adeertan waxaa qabaa anigu socdaal buu ku yimid waxay la mid tahay socdaaladii kale ay ku imaanayeen dadkii siyaasiyiinta ay Soomaali ka mid ahaa waxay kaloo cadeynayso dadka Soomaaliyeed ee inta degan inay u bisil yihiin dawlad oo ay rabaan dawlad sababtaasaana kaliftay in la soo dhaweeyo shariifka aad baad mahadsantahay walaal intaas aad leeyahay waqtiga ay ku dheer aad baa waxaan rabay intaan qad kale aan gelin shariifka khudbadiisa waxaa ka mid ahayd waxaa jirta in dawladani muddo 3 bilood markay jirtay in ay heshiis la gashay dalka Kenya oo ku saabsan dhinaca badda heshiiskaasi waxaa noo saxeexay wasiirka caalamiga ah Cabdishakuur ayaa noo saxeexay madaxweynaha khudbadiisa waxaa ka mid ahayd inuu ka hadlay baddi balse uu iska dhaadhicin waayay dadkii Soomaaliyeed dhageysanayay in heshiiska la galay in Kenya la galay in kale fikradiina idinku soo gaagaaban qof walba waxaan jeclaa 1 minute inaan siiyo yaasiin adaan kugu bilaab bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynuhu ونقول هذا يوحي الدعاية هنا لكفينا وحكى من الصومال وبد بجدت إن بدن بان شاقنا وحن كويري حتى رسيدة الصومال واحد بعد الساعة وتشهد كتيرين معها همين كيلو جراعة دولة الشيخ شريف دولة الصومال أما أمد الصومال كان يكلي حدود بالله ملها وضمك على لا يمن بيلا لا هي تبوت بيلا لا هي سيشلس من عندنا النور حين حاجة بض مك لقى فيريو كان ينا ولا لا سما قرن هرت واحد حدود بض أنت أو عد كلام اللودي ده كان يلوج للجية هي horta waa su'aal dawladda shariif la weydiinayo waa kow su'aasha labaad oo meesha taala waxa waaye Yemenba muran madad baa jira jasiirada la secondary la dhama secondary la dhaho kan Yemen waxay aaminsan ayadu leedahay Soomaaliya taariikhan waxa loo yaqaan Soomaaliya lahayd oo boqorro Soomaaliya deganaan jireen waa muran dawladda shariif uma doodin uma hadlin waxa taa ka sii daran